Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka Tarjumaad. Maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa 5 arrimood oo lagu gaaro horumar ganacsi. Soomaalidu waxaa lagu ammaanaa in ay yihiin dad ganacsiga ku wanaagsan walow aysan lahayn inta badan waxbarasho ganacsi ama waayo aragnimo caalami ah. Ganacsada ahaan laguma dhashee waa la noqdaa. Haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa 5 qodob oo lagu gaaro guul ganacsi. Ka hor intaynan mowduuca bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Qodobka koowaad waa rabitaan. Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxaa lagu yaqaanaa in uu marka horeba leeyahay rabitaan weyn oo ku aadan fikradiisa. Waa qof jecel waxa uu sameynayo isla markaana doonaya in uu ka miro dhaliyo. Qodobka labaad waa aragti dheer. Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu leeyahay aragti dheer oo ku wajahan ganacsigiisa iyo sida uu uga guulgaari karo. Indho la'aan laguma bilaabo ganacsi. Qofka waa in uu leeyahay aragti qeexan oo muujinaysa waxyaabaha uu sameynayo iyo sida uu u sameynayo. Qodobka saddexaad waa waxqabad. Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu sameeyaa waxqabad degdeg ah. Hadal iyo fikrad keliya meel laguma gaaro ee waxaa lagu guulgaaraa in aad ka miro dhaliso fikradaada oo aad ficil u beddesho. Qodobka afaraad waa go'aan. Waa waxa ugu muhiimsan ee lagu yaqaano ganacsadaha wanaagsan. Qofka isla markiiba isdhiiba marka caqabad ay ka hor timaado ma aha ganacsado wanaagsan. Qofka howlkarka ah waxaa lagu yaqaanaa in uu leeyahay go'aan joogto ah, uusan ka niyad jabin fikradiisa ilaa uu ka miro dhaliyo. Qodobka shanaad waa waqtiga. Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu yaqaanaa waqtiga ugu wanaagsan ee howl la sameeyo. Waxa uu ka faa'iidaystaa daqiiqad kasta oo ka mid ah waqtigiisa.